saaxiibayaal bishii barakaysanada Ramadaan habeen kasta oo kamid waxaan isla wadaagi jirnay hal xalqad oo kamid barnaamijka aynu ugu magac darnay quudka ruuxda barnaamijkaas wuxuu ahaa kalkiisii labaad yani sanadkiisii labaad ayaynu bishan barakaysan dhameynay ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu mahad celinayna inuu nagu samay inuu si habsami leh inoogu dhameeyo barnaamijkaas oo habeena aanu naga baaqan 30kii habeen ilaahay mahadi barnaamijkaas sida magaciisa ka muuqata quudka ruuxda waxaan ugu tala galnay in qof kasta oo barnaamijka la socda aanu ku jeclaysiino ilaahay si abuurtay subhanahu wa ta'ala inaan ku soo bandhigno raxmadda ilaahay subhanahu wa ta'ala ee uu naxariisanaya adoomadiisa inaan ku soo bandhigno dulqaadka ilaahay deeqsinimadiisa kalgacaylkiisa iyo leexjeclidiisa oo adoomadiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qabo in aynu dhinac badana aan laga hadlin ama ka hadalkiisu yar yahay oo dadka marka la hadlayo oo laga hadlayo ilaahay subhanahu wa ta'ala laga hadlayo arimaha aakhiro laga hadlayo hatta fahanka arimaha adduunka inaan ka istaagna dhinac kale oo ah qalbi qaboojin qof kasta oo hadii ilaahay badankeeda leeyahay warwar helay oo muruga heshay oo dunuubta ku talax tagay oo niyad jab noloshan iyo culaysideedii imtixaankeeda waxa weeyaan ku niyad jabay inuu dhinac kale oo raja ah aynu ka tusino inagoo soo qaadanay habeen kasta aayad kamid ah ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad celintiisa kadib waxaan mahad celinayaa qof kasta oo barnaamijka qayb ka ahaa si wax ugu darsaday dhamaantii waa mahadsantiin ugu dambeyn waxaan mahad celinayaa walaalihii barnaamijka la socday iyaguna ee habeen kasta qaarkood xataa ay dhacay marka xilliga aan soo gari jiray aan ka yara habsaamo in iyagu xasuusiyaan message soo diraan oo dhahan caawa barnaamijkii ma aanu jirin aad u mahadsantiin saaxiibayaal is arag dambe waa quudka ruuxda iyo sanadkiisa insha Allah hadii ilaahay nabad inuu gaarsiiyo salaam